kulan wacan oo wanaagsan idilkiinba ku soo dhawaada janalka Xayla Media. Waxaan maanta inay ka sheekayn doonaa hadduu Ilaahay noo ogolaado jinniga iyo aboor calaaqada ama heshiiska ka dhaxeeya muxuu yahay. Aboorse ma leeyahay boqortooyo mise boqor ay ka amar qaataan miyay leeyihiin. haddaba ku soo dhawow qisadan waxay ku saabsan tahay boqorka aboorka iyo kuwa ku xeeran ee daafihiisa ku xeeran iyo qaabka ay u wada shaqeeyaan. jinka xagee markaa see oo la shaqeeyaa. aboorka xagees ka keenay biyaha waa asaga aboorka ka dhisaa meelaha bahgooyada ee roob iyo barwaaqo ka jir nolol ka jirin waa ka duduwooyinka waaweyn ka dhisay guryaha dabaqyada la eg. haddaba ku soo dhawow waxaa dhacda hadda ka hor nabiyullaahi Suleymaan calayhi salaam sidaad u ogtihiinba wuxuu ahaa nin Ilaahay subxaanahu wa tacaala boqortooyo uu siiyey cid ka dambaysana uusa siinin hortiina aan la siinin ayuu nabiyullaahi Suleymaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala u hibeeyey. maalmaha ka mid nabiyullaahi Suleymaan waxaa markaa uu ahaa sidaad u ogtihiinba Ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaan makhluuqaadka oo dhan ayuu Ilaahay u sakhiray. shimbiraha ayuu la hadlayay. jinkana wuxuu ka mid ahaa dadkii u khidmeynahayay ee lagu adeegsan lagu shaqaysanayay. waad ogtihiin xilligii Balqisa in uu yiri nabiyullaahi Suleymaan inuu yiri yaa carshigeedii gurigeedii quruxda badnaa yaa ii keenaya. ninbaa wuxuu yiri halka fadhiya majliska aniga ayaa keenaya intaada meesha ka kicin. nin kaloo jinniga ka mid ayaa wuxuu yiri maya rasuulka Ilaahayow ana ayaa keenaya inta isha ilbriqsi ana ku keenaya. marka qisadu halkaas dabada ku haysaa. maxaa dhacay. waxaa dhacay nabiyullaahi Suleymaan calayhi salaam muddo ayuu xanuunsanaa. xanuunsanaadee dadkii madaxdii la joogtay ee ka hooseysay ee arrinta uga hooseysay ayaa waxaa dhacday in ay jinniga iyo dadkii kale shaqaynahayay ay ku shaqeeyaan. marka ul ayuu nabiyullaahi Suleymaan calayhi salaam wa calaa nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayuu ku dangiigsanaa ama uu maarta ku tiirsanaa. ushii ayuu ninka aboorka loo yaqaano gunta iyo salka meesha dhulka ku haysay ayuu ka soo cunay. markuu ka soo cunay nabigii waa dhacay calayhi salaam. ushii ayaa la dhacday. jinnigii markaa la tusay wakaa nabiyullaahi Suleymaan amarkaasuu soo bixiyey la dhahayay ayaa waxaa dhacday in uu u caddaatay qaabkii nabiyullaahi Suleymaan oo dhulka ugu soo dhacay. bal aayadda quraanka ee suurada Saba ku jirta bayla dhageysta. falammaa qadaynaa calayhi almawta markaa nabiyullaahi Suleymaan aan ku xukunay inuu dhinto maa dallahum calaa mawtihi waxa tusay keli uun waxuu ahaa ilaa daabatul ardi aboor unbuu ahaa taasoo ta'kulu min sa'atihi ushiisa cuntay. falammaa kharra markii uu dhacay tabayanat iljinnu jinnigii waxa u caddaatay an low kaanuu yaclamuuna alqayba inaysan wax ka war iyo wacalaysan ka haynin waxyaabaha qaybka ee aan la ogeyn ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala keli uu garanhayo. hadday ogaan lahaayeen maa labithuu kumaysan sii jireen fil cadaabi almuhiin shaqadan mashaqada ah ee lagu adeegsanayo nabiyullaahi Suleymaan muddada intaa la dhintay maysan ku jireen. sidaa darteed maalinkii ayay wax u caddaaday. maalinka ayay heshiis ayay wada galeen aboor iyo jinniga ayay wada galeen. waxaa dhacday magaalada Gaarisa inta qisada aan u sii gudagelin magaalada loo yaqaano Gaarisa ee cariga Kenya ee NFD loo yaqaano guri ku yaala ayaa nin gatay boos ayuu gatay. booska waxa ku yaalay dudumada markay ku taalay waxaa la yiri dudumadii waa la qoday waa la burburiyay. waxaa la yiri waxa laga sameeyaa sewage ama boosandheero musqusha biyaheedii qashin meesha galaan ayaa laga sameeyaa yaa maxalliga musqusha laga sameeyo. markii la qoday oo nimankii ka shaqeynayay lacagtooda ay qaateen casarkii oo ka rawaxeen oo la rabo bari inay bulkeeti wixii la saaro oo shaqadii lagu qabto ila waa la qoday ayaa waxaa dhacday aroortii waaga bariyayba waxaa la arkay dudumadii oo aboorka intuu xalay shaqada soo bilaabay
meel fiican soo gaadhsiiyey. haddana dib baa loo qoday. haddana maalinka labaad waa la qoday, casarkii baa laga tegey. casarkii markii laga tegey, haddanana maalinkii labaad subaxdii labaad waxaa lagu arkay ayadoo haddana barteedii maraysa ayaa la arkay. nin injineer ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku leeyahay qur-aan ku leeyahay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna, dadka aqoonta saaxiibka u ah weydiiya ee khibradda leh haddiina aqoon u lahayn. ninkii ayaa wuxuu yidhi aboorkan laga adkaan maayo ilaa la keeno boqortooyadii, in la keeno dadkii boqorka iyo boqoradda in la keeno mooyeene laga adkaan maayo. weligeedna sidaa unbay u soconaysaa. shaqadii ayaa la qabtay, waa la qoday. marka waxaa la soo helay baa la yidhi, horta boqoraddii mid ay ahayd la garamaayo, mid baa birtii wax lagu qoday baa ku tagtay. marka waxaa la soo helay mid weyn baa laga soo helay oo aad u guduudan, oo hadda midka aan ku artay waaweyn meesha ku yaala weeyaan, ayaa la soo qabtay. meesha marka bannaanka la soo dhigay wax alla wixii aboor ahaa ee dhulka yacyaacayay markay arkeen way soo uriyeen. kolley sida anagoo aan isku arnaba isku arkaan dabcan, way ku soo wada carareen, way ku soo wada urureen, way ku soo wada xoomeen. marka wuxuu sii deynayaa biyo ayuu sii deynayaa. meeshuu saa loo dhigaba wax biyaa saa uga burqanaya oo qoyaan ah. dhulku meeshuu saa u istaagaba waa qoyaan. marka aboorkii markuu saa u istaagaba ciidu saa u daray oo qoyan wuu la ordayaa. wuxuu haystaa meeshii inay tahay xaruntii in weli ay sideeda tahay u haystaa. bartii ayaa ninkii lagu dilay weynaa ee boqorka ahaa. marka waxaa dhacday in aboorka iyo jinnigu halkaasi ee heshiis laba geesooda ay ku kala saxiixdeen, midaasoo qeexaya aboorow anigu waxaan ku ballanqaaday maadaama aad dhibaatadii haysatay aad iga furdaamisay, waxaan ku ballanqaadayaa in meel kasta oo dunida ka joogto, ama meel biyala ha noqoto ama meel oomana ha noqotee, inaan kuu keenayo biyo kuu keenayo. halkaa ayay heshiiskii ayay ka wada saxiixdeen. marka ninka loo yaqaano aboor qisadiisu sidaas ayay ahayd. magaalo idil oo hadda sawirkeeda halkayna ka muuqdo ayuu sababtiisa ayaa loo guuray oo dumtay. magaaladan hortiina ka muuqata waxa ay u duntay sababtiisa darteed ayay u duntay. waatana bal eeg magaalada inta la eg ee bulsho inta la eg ay ku noolayd ayuu ka qixiyey oo uu ka barakiciyey oo ka barabaxiyey dadkii ku noolaa sukaankan ama deegaankani. aboor ayaa ka kiciyey. marka deegaankan markaa asago oo ma baahno wax loo yaqaano biyo, sababtoo ah asagu heshiis hore oo laba geesooda ayuu saxiixay, kaasoo ku kacaya. markuu soo qadayay ayaa la dhisay. adigu marka dambe ninkii injineerka ayaa wuxuu yidhi aboorka laga adkaan maayo ilaa boqorkiis la soo qabto. cadal ay tahay ninkii aboorkii waa la soo qabtay, boqorkiis waa la soo qabtay, naagtii way dhimatay. adigu markii la qoday ganfidii wax baa yaa maray, ninkii baa aboorkii boqorkiis ayaa la soo qabtay. aboorkii markii bannaanka la soo dhigay, ilaahay amarkii markii bannaanka la soo dhigo wuu wada qoyayaa. wax alla wixii aboor ahaana oo micnaha halkaa yaalina joogana asaga ayay u imaanayaan. marka biyo ayaa saa uga da'aya waa laga shadaa